صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 صوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرامج كيني دروس رمضانية وحلقة دي لح إلى لباتنات. حلقات waxaan ku eegi doonaa احتكافka iyo muhiimada uu iska leeyahay aan ku eegi doonaa. maadaama lagu jiro bisha barakeysan Ramadaanka gaar ahaan 10kii ugu dambeeyay nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu ahaa yani mid i'tikaafa iyo ahaa masaajidu ku i'tikaafi jiray nabiga kaleey salaatu salaam. haddaba marka inuu waxaan xalaqadatan waxaan rabnaa inaan ku ogaano i'tikaafka iyo shuruudaha uu leeyahay iyo waxyaabaha laga rabo qofka muxuu ahaa muslimka ee i'tikaafaya in uu ogaado iyo sidoo kale waxyaabaha qofka i'tikaafkiisa ka burin kara يعني حلقة ku eegi doonaa. اعتكاف waxa la sharci ahaan in muxuu ah masaajidku lagu nagaado iyadoo qofka muslimka uu la iimaanay niyadaas oo ah in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dhawaado. yaa la raada muxuu ah xagga sharciga muxuu ah xadiis ku soo aroortay aad iyo aad u farbadin waxa kamid ah xadiiskii Aisha radhiyallahu anha nabiga ka warsan alayhi salaam كان يعتكف في العشر الأواخر في رمضان حتى توفاه الله. عائشة رضي الله عنها النبي وحوها عليه الصلاة والسلام إنه اعتكافه تبنك أود دنبي إلى إلهي سبحانه وتعالى وكأف صدق وكجيريوده. النبي قال إنه اعتكاف جل صلى الله عليه وسلم. مركو مهم أرنت أيضا إنه النبي إنه كجد ضينه ومحوها قفك مسلم كمساعد وتجا وكاعتكافه وجوجا أرنت أيضا آدم مهمته. sidoo kale i'tikaafku wuxuu leeyahay shuruudihiisa waxa kamid ah qofku inuu yahay qof islaam oo qof muslim uu yahay aqli uu leeyahay uu wax kala saari karo waa muhiim. qodobka labaad sidoo kale in muxuu ah qofku uu niyad la yimaado hadaa laakiin masaajidka iska gasho oo caawna aad joogtid oo aad waxba aad niyeysanin ajirkii i'tikaafka laga helay ma helays. marka waxa muhiim mar waliba oo masjidka aad gashaa inaad niyad la timaado yaa muhiim si inta aad masaajidka dhex joogto Ilaahay ajir badan uu ku siiyo. qodobka saddexaad waxa kamid ah shuruudaha i'tikaafku uu leeyahay in la helo masjid waa muhiim. halka lagu i'tikaafiyo qofku uu joogayo inay masjid tahay waa muhiim. laga tara guriga ku i'tikaafiyo ama laamiga ku i'tikaafiyo taayada kuma ansaxayso. waxa kale muhiim qodobka afraad shuruudihiisa kamid qofku inuu daahir uu ka yahay janaabada iyo xaylka iyo nifaaska iyo waxa soo dhan muxuu ahaa qofku inuu daahir uu ka yahay waa laga maarmaan. waxa muhiim soo kale in ogaan waxyaabaha la sunnay waxyaabaha qofka muxuu ahaa i'tikaafiga loo sunnay maxaa kamid waxa kamid inuu badiyo salaadaha inuu badiyo quraan akhrinta inuu badiyo in muxuu ahaa adkaarta uu badiyo in amya mar walba uu ku mashquulsan yahay a'maal saalixa ah inuu ku mashquulsan yahay waa muhiim. waxa kamid sidoo kale inuu ka fogaado qofka waxyaabaha maalayacniga muxuu ahaa inuu ka fogaado aad looga fiican yahay sida muxuu ahaa afxumada iyo dooda iyo waxaas inuu ka fogaado. inta badan dhalinyarada u badan iyagoo masaajidka ku jira ayaad maqlaysaa sheekadooda iyo maalayacnigooda iyo dheeshooda iyo masaajidka dhex ciyaarayaan taayada ma wanaagsan walaal. soo kale muhiim qofku inuu masaajidku ku nagaado waa muhiim. waxa kale muhiim waxyaabaha jirta qofka muxuu ahaa mu'takifka waxyaabo u banaan ayaa jirta uu sameyn karo aan waxba dambi ka soo gaarin. waxyaabo u banaan waxa kamid ah inuu masaajidku uu ka baxo laakiin dan uu u baxo. qofkii masaajidka isagoo ku jira yaa muxuu ahaa dan ayuu yeeshay wuu bixi karaa arinta ayada way u banaantay. waxa kale muxuu ahaa qofku u banaan inuu wax cuno inuu wax cabo way u banaantay ayadoo la ilaalinayo nadaafada masjidka masaajidka nadaafadiisa ayadoo la ilaalinayo in wax lagu dhax cuno waxna lagu cabo arinta ayada way u banaantay. waxa kale u banaan hadalka banaan hadal qofku uu ka hadlayo oo hadal aan xaraam aan ahayn inuu qofku uu ku hadlo ayada way banaantay. waxa kale muhiim inuu qofku ku dadaal nadaafadiisa inuu masaajidka ku dhax shanleysto ama inuu cidiyaha uu iska jiro ama inuu iscarfiyo oo muxuu ahaa waxyaabo udgoon uu isticmaal arinta aydan way u banaantay. i'tikaafkiisa waxba uma dhimayso. ugu dambeyntii waxyaabaha qofka ka burin kara i'tikaafka waxa kamid ah inuu qofka masjidka uu ka baxo isagoo yani wax dan la'aan uu masaajidka ka soo baxo isagoo wax dan aan lahayn baahi
keeni karto inuu ka soo baxo masjidka aan lahayn inuu soo baxo yani waxay ka burinaysaa i'tikaafkiisa. waxa kale oo kamid in qofkii caqliga uu ka tago muxuu ahaa caqliga inuu tago ama waaliha ku tago muxuu ahaa waxyaabo uu isticmaalaha ku tagay in caqliyadiisa ay tagto ayadana muxuu ahaa i'tikaafka ka burinaysaa. waxa kale oo kamid ah i'tikaafka buriyay in haweenti muxuu ahaa uu ku dhaco dhiigi muxuu ahaa xaydka ama nifaaska uu ku dhacane ayadana i'tikaafka ka burinaysaa. ugu dambeyn waxa i'tikaafka qofka ka burinaya in qofka diinta uu ka baxo diinta uu ka laabto ilaahay ka magan subhanahu wa ta'ala. inaas ayaa kamid waxyaabaha qofka i'tikaafkiisa ka burin kara. marka walaalayaal maadaama bisha barakeysan raanka lagu jiro aynu ku dadaalno in masaajidada aynu tagno aynu i'tikaafno inagoo ku dayana nabiga kaleey salaatu wasalaam. wajazaakumullahu khayr wasalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.